magacaygu waa Canab Cabdullaahi Canab Furuli aad baan wada garanaysaan dadka social media isticmaalo shirkan saaka lagu qabtay degmada Doolow wuxuu sabab u yahay 16 bishan hadda aan ku jirno oo Abriil nimankii xildhibaanada sheeganayay oo inta guri isugu taga shirka official ah ayagoo xildhibaano qaran ah la taagna social media Cabdirashiid baa mujrima barnaamijka qabiil u keensaday halkaan ay ka dhacday iyo waxaan loo baahnayn markii 13 bilood la joogay soo ay meesha la yiraahdo Banyoolay oo xuduudda Soomaaliya iyo Kenya u qaybsanta dhexdeeda ah waxa laga fadhin lahaa wasiirka dabkiisa riday waxa ka ahaa Mahad Salaad waxa laba ka Cabdiraxmaan Odawa waxa ugu horeeyay waliba waxa dhan ka sii weynaa ninka la dhihi jiray Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ina mako yaa kamid ahaa waxa weeye shalay Cabdirashiid Mujaahid buu ahaa qaladka dawladda waad sheegayseen maanta markii la heshiiyay waxaan la yaabana heshiiskaas u nidin ah xagee la idinka daba taagan yahay dhibaatadu xagee ka jirtaa ma imaaraadka dhibkan ma soo aqligiin anagu ma garanayno waxaan idin leenahay Cabdirashiid waa mujaahid waa nin dadkiisa iyo dalkiisa iyo deegaankiisa Soomaaliyeed gartay dhibaatada shacabkiisa iyo ummadiisa haysato waa nin la heshiiyay dawladda federaalka Soomaaliya shalana xoogaa isfaham waa ay meesha ka jireen waxa uu keensaday 500 nin oo la 30 tignika wadato maxaad haysataa waa idinka ka qaylinayo shirka official ka qaylinayo oo marna ku hayo Saadiq Jomba mujrimaha oo dadkii uu kabiil kula duugay oo dhibaatadaas dhacday oo farmaajo adeegsanay lahaa maantana waa mujaahid war dadku waxa way Soomaali weeye dad aqli xun ma aha waa dad wax fahmaayo waa dad burburkii iyo Soomaaliya dhibaatada loo geystay ku soo cimri qaatay qof saaka dagaal roomale annagu ma caayayno habar dir baasaana ma dhahayno ayr baasaana ma dhahayno reebel baasaana ma dhahayno waa dad Soomaaliyeed Soomaaliya 30 sano way iswada riiqdo waxaan ognahay in uu la soo weeray xataa deegaanka annaka aan deganah xilligii burburkii Soomaaliya wixii ka dambeeyay wixii soo weerarna qabiilad Soomaaliyeed ay ahayn cid aan u haysanay iyo cid aan saaka aan dacwoonayna ma jirto aanadaas dabadooda la qabtaa waxaan idin sheegaynaa idinkoo sheeganay xildhibaano qaran dawladda idinka wax idin tartaa annaga inta nala dirtay baan dib kala heshiin dad baan nooga dhintay dad baan nooga dhaawacmay xaniya anaga fuulna gacantaad goyn weydana waa la dhunkadaa waxaan idin sheegaynaa adinka oo xildhibaano qaran ah oo ilmihiina ku biish oo dawladda saxsaanadeeda haysto in aan shaxumal idinkaga cayriyay baarlamaankii 225 oo qabiilaadkeeda ku matasheen annaga nagu maadnimay qabiilaadkiina ku matasheen waxaan idin sheegaynaa Cabdirashiid dambiila ma aha Cabdirashiid waa nin horumarka deegaanka uu degan yahay laga yaqaano waa ninka saaga loo soo dhaweynay waa ninka marqaatay ka eedan allergic in ku kacay Cabdirashiid ma aha ninka la yiraahdo dambiila ma aha Saadiq Jomba dambiila ma aha qodobka koobaad waa niman soo halgamay oo soo shaqeeyay dalka Soomaaliya waxa dambiila ah ninka imaaraadka ay daba taagan yihiin ninka beenta raba Soomaaliya inuu ku maamulo wallahi been Soomaaliya kuma maamuli karo dagaal sokeeyna cid xiisa u qabtay ma jirto waxaan idin sheegaynaa ilaahay ha idin salansiyo wuxuu dawladda Soomaaliya ay tahay iyo horumarka Soomaaliya laga damacsan taas qodobkaas uga baxa qodobka labaad wuxuu yahay waxaad ku qafiifteen beel caalam 13 bilood bay Banyoolay laga hadlaysay beel caalam sabiirka Ingiriiska la hadal sabiirka Mareykanka la hadal kii Norway la hadal midowga Yurub la hadal waxaan been hayno sheegto ma jirto beel caalamna arrimaha Soomaaliya ma faragelin karto tii ayada heedoon annakii adinka isku qancinaynay waa soo dhamaatay waxaan idin sheegayaa James Iswani Dolin iyo Mamoto wallahi inay waxba ka qaban karin Soomaaliya Soomaali baa leh been waxba ma tarays niman Soomaaliyeed baa tihiin wixii qaldamay waxa waa shaydaan bay ka sugnaadeen dadkiina dhinac ka raaca waa qodobka labaad qodobka saddexaad afka markaad qaadan waxaad leedahay Maxamed Siyaad Barre farmaajo maxaa dadka isugu qabanaysaan Maxamed Siyaad Barre dawladdii uu soo hogaamin jiray ama generaalada ay ka ahaayeen qabiilkiina ama Soomaaliya ay qaybta ka ahayd sida lagu soo maamulay sida lagu ogaa waa la ogaa qabriga uu ka jiifay Maxamed Siyaad Barre waa ka joog waay waxa ku darsateen lama yaqaan hogaamiye Soomaaliyeed oo ahaa gumaysta ma ogoleen waxa raadinaysan u daba taagantiin waa gumaysi inaad soo celisaan gumaysana Soomaaliya waa ka ilbaxday maxaa soo aray farmaajo waa madaxweyne Soomaaliya waxay ku dhisantahay 4.5 adiga Mahad Salaada kaligii talis qof aan kaligii talisayn ma jiro laba nin oo ilmaaleeys daba socoto Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud min 4 sano Soomaaliya soo maamuleen maxay ka soo doonayaan ma dadka la keeno qof aan xukun dictator ah oo Soomaaliya oo dhashay cunug xal dhashay taa ma jiro Soomaaliya ma dictatoriin ah xagga marka 4.5 waxaad ku matalo Prime Ministerka Maxamed Xuseen Roble waxa idinku matalo golo wasiiro waxa idinku matalo heer state dadkiina cabashadiina u gudbiya